Itoobiya waxa ay sheegtay inaysan ka laaban doonin damaceeda helitaanka badda Soomaaliya iyadoo sheegtay inay xiri doonto xuduudaha ay la wadaagto wadamada Djibouti, Suudaan, Masar, Soomaaliya, Kenya iyo wadamo kale oo xuduud ay wadaagaan oo Eritrea ay qayb ka tahay. Muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa xogtaas oo dhameystiran. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo iyaduna waxyaabaha haatan horyaalo ay tahay inay qabato, laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara, si share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin, boggaana follow soo dhaha si aad kaga mid noqotaan saaxiibada ku xiran. Mahadsanidin. Aynu ku bilownay. Dowladda Itoobiya ayaa heshiis waxa ay la gashay maamulka Somaliland bilowgii bishii January ee sanadka 2024 kaas oo ku kacayay in Itoobiya la siiyo 20 kiiloomitir oo badda ah iyo sidoo kale dekad ay kala soo degaan waxyaabaha ay dibadda ay ka soo dhoofiyaan Itoobiyaanku. Sidoo kale mashruuca saxiixaasi waxa ku jiray in maamulka Somaliland Itoobiya ay ictiraaf siinayaan isla markaana ay u aqoonsanayaan dal madax banaan, laakiin Somaliland iyo maamulkeeda ma oga dabinka halkaasi ku jira iyo shirqoolka loo maleegay ee lagu doonayo in Soomaali lagu kala geeyo. Iyadoo ay sidaa tahay xaaladuna ay halkaasi marayso ayaa mar kale waxa Itoobiya ka soo yeeray war kaleeto oo aysan ku farxin doonin dadka Soomaalida ah. Dowladda Itoobiya ayaana sheegtay in xuduudaha wadamada dariska la ay xiri doonto maalinta sida rasmiga ah loo saxiixayo heshiiska taariikhiga ee maamulka Somaliland iyo Itoobiya ay wada galeen, sida lagu yiri bayaan ka soo baxay Itoobiya. Afhayeenka dowladda Itoobiya ayaa sheegay in dhawaan la shaacin doono waqtiga rasmiga ah ee kama dambaysta ah, isla markaana heshiiska is-afgaradka ay wada gaareen maamulada Somaliland iyo Itoobiya la saxiixi doono, isla markaana Itoobiya ay heli doonto sida ay sheegtay badii ay maamulka Somaliland heshiiska ay kula galeen, halka Somaliland ay heli doonto ictiraaf sida uu sheegay afhayeenka. Sargaalkan sare oo afhayeen u ah dowladda Itoobiya ayaa sheegay in dhawaan la shaacin doono date-ka la dhameystirayo heshiiska is-afgaradka ee maamulka Somaliland iyo Itoobiya ay kala saxiixdeen. Waxa uuna tilmaamay in waqtigaasi haddii la gaaro la wada xiri doono dhammaan xuduudaha dalalka ay Itoobiya la wadaagto xadka ee kala ah Soomaaliya, Kenya, Djibouti, Suudaan, Masar iyo sidoo kale Eritrea oo dhammaantoodba ay wada xiri doonto Itoobiya sida ay tilmaamtay. Sargaalkani sidoo kale afhayeenka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay isaga oo la hadlayay Arab World Press in Itoobiya ay soo xiri doonto dhammaan wadamada ay xuduudaha ay la leedahay, isla markaana uu noqon doono marka uu heshiiskaasi dhacaya ka hor mid Itoobiya ay soo wada xirto xeendaabyada xuduudaha maamulka Somaliland iyo sidoo kale maamulka Itoobiya inta wadan oo xuduud ay la leedahay, isla markaana heshiisku uu dhici doono iyadoo xadka ay joogaan ciidamo Itoobiyaan ah, sida uu tilmaamay afhayeenkan u hadlay xukuumadda Abiy Ahmed uu hogaamiyo. Dhanka kale, dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaduna markaani waxa ay doonaysaa in dagaal foolka-fool ay ku qaado Itoobiya haddii aysan ka joogsan dhibaatada iyo sidoo kale kala geynta ummadda Soomaaliyeed ee Itoobiya ay wado. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dagaal toos ah uu gali doono haddii Itoobiya aysan ka baaqsan waxa ay ka dhex wado gudaha Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in uu ka xigo in dowladda Soomaaliya ay burburto, sidoo kale shacabka Soomaaliya ay difaacdaan dhulkooda intii dowlad dhisan dhulkeeda la qaadan lahaa, sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in Itoobiya ay riyo maalmeed ay ku jirto, sida uu tilmaamay. goor sii horeysay ayuu madaxweynuhu sheegay in is-afgaradka dalka Turkiga ka bilowday ee Itoobiya ayada soo qorsheysay, isla markaana madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyaga oo ku qancinaya dalka Turkiga bandhigitaanka uu soo bandhigay heshiiskaas tusayana in Itoobiya raali ka ahayn inay joojiso damaaciga xun iyo riyada ay ku jirto in ay tageen dalka Turkiga, isla markaana ay ka qayb qaateen kulan kaas oo si toos ah oo foolka-fool ah
aysan isku arkeynin wasiir arrimo dibadeedka Soomaaliya iyo Itoobiya oo dalka Turkiga markaasi kulanka uu uga socday isla markaana ay garwadeen ka ahayd dowladda dalka Turkiga daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saar si share garay oo la wadaag saaxiibada bogaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran sidoo kaleeto dhanka iyo commentiga inagula wadaag waxa ay kula tahay arinta ay shaacisay Itoobiya iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka ee Soomaaliya talaabada ay qaadi doonto mahadsanidin.